بارك الله فيكم شيخنا فاضل إلهي ميزانك حسناتك كسار وسيدة ونكسن سؤال شاس وجبت شيخنا فاضل سؤال شان نقول حكتو وحكتمت جبر ولا لها كمده وجبر ولا شينه وقولك كحرا ولا شان وبسلام سلام كبعدي وحليذا هاي شيخنا فاضل وحان هاي جبر أو حتى ربطو إني جورستو wiil baa adeerkay ibaray wiilkaasna yani adeerkayga markuu ibarayay waa wiil uu iga soo hubiyay diintiisa iyo akhlaaqdiisa waxay leedahay walaashan waxaan ahay gabar aad u daayar waxaan ahay gabar diinta lagu soo barbaariyay haddana waxaan ahay gabar ma sha Allah quraanka barto ciyaalka iyo dacwada ku dhex jirto wiilkana waa wiil diintiisa aad u sareyso labadeenna guur baan ku heshiinay guurkiina waan ku wada heshiinay meherkiina waa dhacay marka waxay leedahay walaashan sheekuna faadil arin baa meeshii soo dhaxgashay wiilka aan rabo inaan iskuursano hooyadiis oo xoogaha diinta aan ku wanaagsaneyn baa arin la timid oo rabto aniga iyo wiilka inay nagu qasabto hooyadu waxay taagan tahay bay leedahay guurka arooska dhacayo فنانين بانكريه بيتري dad baa ilaa Australia ilaa Canada aan soo cazimay aroos kana waxaan rabaa in laga dhigo aroos oo fanaaniin iyo adduun ay joogan gabadhana inay soo xirata taash dadka soo hor fariisata arintii baan aniga aan wiilkii kala tashtay wiilkiina wuxuu igu yiri anigu diyaar u meey arintan laakiin hooyo waan la hadlaynaa biidnillah marka wuxuu isku dayay inuu hooyadiis la hadlo laakiin hooyadiis waxay soo istaagtay maya arintaas way dhacaysaa wayna soconaysaa haddaad diidid gabadhan ay rabin gabar arintan rabto ayaan ku keenayaa marka ala kulli xaal waxay leedahay gabadhan waalidkeygina way la socdaan arinta mana ogolo wiilkana ma ogolo heer waxaa la gaaray hataa maamadii in laga dhaadhicsiyo cid walba ay la hadasho laakiin maamada waxay soo istaagan tahay maya arintan way dhacaysaa marka waxay leedahay sheekh guurkiina meherkiina waa dhacay anigana waxaan ahay qof ahludiin wiilkana waa ahludiin laakiin hooyadii baa aqoon dheer naga haysataa maxaan ugu la talin lahayd maadaama hooyadii ay taagan tahay arintan iyada soo abaabushtay fanaaniintan iyo arimahan anagana waxaan ku dhahnay yeeli meeno meeshaasna imaani meeno mana ogolin iyadana waxay taagantahay waa inaa meesha imaataa oo taash loo soo xiraa gabadha marka waxay leedahay sheekh arin baa igu taagan inoo soo duceey walaashana wayna dhageysanaysaa sheekhuna faadil falyatafadal mashkuuran wa maajuuran بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد gabadhani qaab wanaagsan oo aad aan ugu farxay bay hadalka u soo tartiibisay hadallada ay soo jiitay waxaa ka mid ah adeerkay ayaa i baray wiil wanaagsan inta badan dhalinyarada meelahan ku korta in qof la baro oo qof kale oo waliba waalida uu baro in yar baaba aqbashaba marka gabadhaasi waxaad moodaa runtii hadal qiimo badan weeye adeerkaana asagana waa adeer runtii jazaahu allahu khayran la jecel gabadhiisa wax wanaagsan wiilkaa wanaagsan ay gabadhu ku tilmaantay inuu wanaagsan yahay ayadu ay leedahay weliba gabar yar baan ahay ahlu dacwa wiilkuna waa ahlu dacwa multazim weeye intaasoo dhan waa waxa laysku doorto waana dhiiri gelinaynaa qaabka in wax lagu doorto oo sidaa wax loo doorto oo diin iyo sharaf laysku doorto waxaase cajiiba soomaalidu waxay dhahdaa geel curadiisii durdurisay aarankiisii maxaad mooday geela hasha weyn koorta loo xidho haddayna deganayn oo geela ayna daajinaynin oo geela aynan kolba dhinac u hogaaminaynin oo ayadu ay orodo ay durduriso geeli yaryaraana wuu ka sii darayaa waxay kaloo carabtu dhahdaa idaa kaana rabu lbeyti daariban fashiimatu ahli lbeyti raqsu haddii ay ninkii iyo islaantii isqabeen waaweynaa hadday durbaan iyo soo qaataan kaban soo qaataan haddii carruurtii soo qabka ciyaar ma samaynayaan waxa uu looga jeedaa xikamkan middan soomaaliga iyo middan carabiga aba waxaa loola jeedaa waxaa cajiiba dadkii waaweynaa
آخر أسي دواء دأذي أدونك سوقاتي الدنيا سوقاتي قرتي أي إلهي التصبيح صلى قرتي أي ذنوبتي أي سوق لنا هري أي إلهي أقولنا قل تبارك وتعالى أو أي كش الله يطول لهايين قرته ماشي أي تشوغان أي إيجي لهايين أو وضن كودي أي كسوقحين أو أي قربكو يهين أو أي فقراء يهين أو قيسس كودي إيا ريرو هذي لغايا بإنay gaajo u baqtinayaan xaaladda noocaasa dhalinyaradu wadamada ay ku dhex jiraan kufriga ay ku dhex jiraan iyo gaalnimada ay ku dhex jiraan iyo macsida ay ku dhex jiraan iyo waxa dhinacyadooda ah marka la eegay dadkii la rabay in lagu daydo oo ay dhahaan maya sidaa ma aha oo in la celceliyo ahayd dhalinyarada in la celceliyo ahayd laakiin qof weyn oo maanta da'a oo caruurtiisii la qabo ama la guursaday in la celceliyo oo macsin laga celceliyo oo gabadha iyadaba dhahaysa waan yarahay 17 jiriyo wax 20 sano ku laga yaabo xuduudeedu inay tahay yani inay ku celceliso hooyadaasay horta intaasaa ceeb kugu filan ilaahay agtiisa intaasaa ceeb kugu filan diinta xaggeedana intaasaa dhaleecayn kugu filan mu'miniinta waxgaradka ana yani intaasaa ceeb kugu filan inay arrintaa iyada ay maqlaan malaa'igta garbaha kaa saaran iyo kuwa wax kaa qoraya lacagta aad bixinayso yaa leh aad ku bixinayso waxa shayga xaaraamta ah midda kale ma runba inaad ilmahaaga jeceshahay ilaahay baan kugu dhaariyey hooyada arrinkaa laga soo sheegayay warkan caawa hadduu gaadho ama ay haddaba hadday dhegaysanaysaa bal hooyadaa su'aal baan ku weydiinayaa si daacad ah oo alla ka cabsi ah oo aan innaba warwareeg lahayn isku day inaad su'aasha aad ka jawaabto qabriga markii lagu geliyo kafan cadna lagugu xidho barkinna ciidda lagaaga dhigo dadkii ku jeclaana ay kaa kala dareeraan munkar iyo nakiirna ay kugu soo baxaan su'aalana ay ku weydiiyaan haddii lagu yidhaahdo qof weyn baad ahayde muslimad baad ahayde maxaa kugu qasbay waxan oo macsi ah inaad samaysaay diyaar ma u tahay inaad dhahdo nacam arrintaa waan sameeyey wayna dhacaysaa sida haddaad ugu madax adag tahay midda kale ma runbaa inaad gabadhaada jeceshahay ma runbaa inaad wiilkaaga jeceshahay hadday run kaa tahay inaad jeceshahay oo inay wada joogaan ama ay wada jiraan ama isku waaraan hadday run kaa tahay inaad jeceshahay ilaahay baan kugu dhaariyey maxaad macsi oogu bilaabaysaa guriga maxaad caro alla oogu bilaabaysaa guriga maxaad ciqaab alla oogu bilaabaysaa guriga soo aakhare kama baqaysid soo ilaahay kama baqaysid soo ma doonaysid reerkan inay nabad sii noqdaan oo ay isku waaraan meeqa ayaa noocanna soo martay intii noocaa loo sameeyey durbo kala cararay oo durbo kala faniinay oo durbo kala yaacay meeqa ayaana soo martay hooyada waxaan leeyahay ka daa carruurta waxa aad doonaysa u samayso hoballana loogama baahna meeshan muusigna loogama baahno shukri allah looga baahan yahay bal ereygaa dhagahagaa ku dhaco shukri allah looga baahan yahay xamdi allah ayaa looga baahan yahay nicmadan in ilaahay lagu celiyo waxa cajiiba wadaadku markuu meerinaya wuxuu dhihi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم أو يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أو يدم دافك إله ويدي سنينه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أو كأمر قاد الشيء سو كلمة الله سو كلمة الله لسكو مبنينيو سو قرآن ما وحل لسكو قورينيو سو حديث ما وحل لسكو قورينيو والإلهي أنكبغن إلهي أنكبغن إنت وحان لي هذا الككلل waxaan leeyahay waalidka ama gabadha xageeda ha ka socoto ama wiilka xagiisa ha ka socotee waalidka weliba dumarka ah war dumarow waxaad naarta ugu badateen ee nebi moxamed idinku sheegay sala allahu alay slam waa noocan oo kale islaan 70 jira oo 60 jira oo 50 jir ah oo u olaynaysa inay gabadhaadii inta ay ku soo daashay ama wiilkeeda intaa soo korinaysay inay guri xumaan ugu dhisto mawaalibaa jirta mise miyir qabaa jira gabadha waxaan leeyahay iyo wiilka cuquuq idinkuma aha haddaad khilaaftaan
oo dhahdaan annagu maba imaanayno ma la isku kiilmeeriye haa maba rabnaba aniga taladayda hadday tahay maba rabnaba aroos ma dhaha khalaas waa dhammaatay maba rabnaba haddiiba mar la iskugu kiilmeeriye labadiinna khalaas guri isgeysta ama hotel dega waalidkiinana ixsaan u sameeya haba yeelina meeshan ha soo fadhiisana hadday hooyo kasta nooca lagu samayn lahaa hooyooyin badan ood moodo inay khaatimo xumo ku socoto ilaahay khaatimada ha noo wanaajiye edab fiican bay yeelan lahayeen ha ku ateecina macsida ilaahi makhluuq laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marna ha ku ateecina hadday awooddiinnu ay tahay inaad idinku isheli kartaan idinku ishela mar haddii la isku kiilmeeriyey alxamdulilah cid idin qasbaysa male hadday ayagu islaamaha u yeeranhayaan ay dad u yeeranhayaan oo ayaga hawl u taalla wey idinku sahtagina gurigiinna jooga ilaahay caabuda ayagana wanaag iyo ixsaan u sameeya ilaahayna waxaan ka baryaa tabaaraka wa tacaala inuu guryaheenna noo dhiso guryaheennana noo hagaajiyo hooyooyinkeennana noo soo hanuuniyo sharta ay mar walba la socdaan ee ay aroosyada kula socdaan haweenkii waxaa laga kari leeyahay war iska daaya daansiga habeenkii bal aduu ma aragtay reer baa la dhisayaa 6 saac oo habeennimo kowdii habeennimaa lasoo labisan baca ayaa lagu soo guranayaa maxaa la yidhahdaa duro dubay laga keenay oo qaali ah oo laga soo bixiyey $200 laga soo bixiyey iyo ka badanba iyo intaasoo dhalaabaa lasoo qaadanayaa xijaab bay qabtaa hadday doonto indhashareer bay qabtaa hadday doonto maxaa la yidhaha iikeen noocan weeye waxyaalaha khariibkee la yaabnay war aroos waxaa la arkay 3 habeennimo iyo 4 habeennimo iyo 5 subaxnimo bal adu dad guryahooda ka maqan oo tumanaya oo boodaya oo muusig ku mashquulsan waxaase wax la sax ah war noocaa sax ma aha noocaasi wax sax ah ma aha sidaa daraaddeed waxaasi daansi baa loo yaqaan ma aha maxaa la yidhaha aroos yaan laga qaybgelin kuwaasoo kale war barqin ku soo kala dareera 11 hadday gaadho gabar walba gurigeeda ha timaado maxaad ka qabanaysaan saacadda maxaad ka qabanaysaan meelaha war ilaahay ka baqa war qabri baa idin sugaya gabdhow war wallaahi su'aal baa idin sugaysa war su'aal baa idin sugaysa munkar iyo nakiir baa su'aal idin weydiin war qabriga dhexii su'aal baan idinku weydiin war aroosyada aad qaabkan u dhigaysaan war ilaahay oga baqa oo reerana waa ku dumeen reero badan baa ku dumay oo carruuro badan baa ku khasaaray idinkuna waad ku aakhara waayaysaane ha idinku fillaata nicmo alla wey tabaaraka wa tacaala barqinkii baa nabiga xaasaskiisa guryaha loo geyn jiray soo nabiga ma jeclin soo waddadiisa ma rabno inaan qaadno calayhi salaatu wasalaam barqinkii baa loo geyn jiray barqinkii ayaa loo geyn jiray nabiga sala allahu calayh waali wasalam dhaqanka sidana waa dhaqan khatara oo qallafsan oo xun soomaalidu buuna khaas u yahay war arrinta ha la bedelo oo intii qadada la cuno 6 galabnimoba haddii haween isu imaanayaan 6 galabnimo ninka guriga gabadha ha loo geeyo maxaad ninka uga haysanaysaan gabadha ninka gabadha maxaad uga haysanaysaan nin baa loo meerinayaa duurkii markaasaa caawa beri subax loo geynayaa 2 saac subaxnimo ayadoo fadhiday oo cillaan loo soo mariyey oo timo intaa la